maamulka cisbitaalka u gaarka la tacaalida safmarka COVID-19 ee Martini ayaa shaaciyay in 42 bukaan oo kamid ah kuwa xaaladooda adkayd ay bogsadeen isla markaana ay ka baxeen cisbitaalka 34 kamid ah ayaa ahaa lab halka ay ahayd 8na dhadig inta badan bukaanada ayaa cisbitaalka la seexiyaa marka ay ku adkaato neefsashada waxaana lagu xiraa qalabka fududeynaya inay neefsiga helaan arrintaas ayaana ka dambeysay markii sare loo qaaday adeegyada caafimaad ee cisbitaalka laguna soo kordhiyay qalab casri ah baadi duqow macallin oo muddo 2 toddobaad ah ku jira cisbitaalka waxa uu ka soo baxay xaaladii adkayd dhaqaatiirta ayaana u ogolaaday in gurigiisa isku karantiilo waxa uu sheegay in cisbitaalka uu yimid isagoo aan eeladiisa ogeysiin sabab la xiriira cabsi laga qabo inuusan helin daryeelka caafimaad oo u baahan yahay balse cisbitaalka waxa uu sheegay inuu kala kulmay arrinta ka duwan markaan imaanayay si dhuumashaan reerkii uga soo tagay sababtuna waxay ahayd fikradda aan ka haysanay cisbitaal Martini oo ah meel karantiil oo qofka inta lagu tuuro wax ka daba imaanaya aysan jirin dayac iyo dareel xumo loogu dhimanayo ayaan ka aaminsanay inuu nala ka dhaadhiciyay waan soo dhuuntay ilaahay baa mahad iska leh jaranjaradii waa fuuli waay markiiba dhalinyaro ay qabatay garbaha waa layla cararay waxaa la geeyey meesha emergency-ga markiiba oxygen baa laygu xiray waa la iseexiyey wax yar ka bacdi xaakaa layga qaaday ka bacdi dhiig baa layga qaaday ka bacdina raajadii baa layga qaaday waa la gudbiyey waxaa la ii gudbiyey meesha temporary-ga howlka weyn gurmad aan caadi ahayn oo aan kala go' lahayn oo shaqaalihii maamulkii dhakhaatiirtii looda kor taagan yahay waan kala kulmay ilaahay baa mahad iska leh waxay ahayd maalintaas axad bay ahayd axad iyo isniin iyo talaado waxaan jiifay meesha iyada arbacadii baa layga soo gudbiyey waxaa la ii soo gudbiyey howlka weyn maalintaa arbacada ah habeenkii 5 saac waa qandhadii iyo naqaskii igu xirmayey iyo quficii intiiba iga istaageen intiiba markaas iga istaageen caafimaad aan la dareemi karin baa la kulmay wixii la sheegayay Soomaalidu waxay tiraahdaa been fakatay runi ma gaadho wixii la sheegayay been bay ahaayeen cuntada taala hoteelada waaweyn cuntadoodii waa taala dadka da'da ah ee gaara xaaladda adag ee neefsiinta u baahan ayay adag tahay inay ka badbaadaan balse nasiib wanaag tiro badan oo kamid ah bukaanadaasi ayaa bogsooday iyagoo guryahooda loo fasaxay xaaladooduna ay dhaqaatiirtu la soconayaan dahaba xasan oo cisbitaalka la keenay iyadoo aan miir lahayn waxay ku dardaarantay inaan cisbitaalka Martini la geyn balse ehladeeda markay u adkeysan waayeen ama ay ku arkeen astaamaha COVID-19 ayay ula soo carareen waxa laga soo waday haanta dheero dayneed laga soo waday si la ii qabtay iyo goor la qabtayna ma garanayo xaalada adag baan soo maray sidii la ii sheegay heer hataa waxa la gaaray in la yiraa oo cawo idil aan meesha kooma kula jiro 2 saac habeenimo la qabtay ilaa 2 saac oo subaxnimo aan ka gaaro intaas bixitaan ma jirin markii dambe waa la isoo waday xoog la igu soo waday haddana heerkaana marahaya alxamdulillaah intii noo dadaashay ilaahay ha guuleeyo gargaarka adduun ilaahay ku guuleeyo haddana heer waxaan marahayaa gurigii in la ii ogolaado la ii fasaxo aan joogi karo aan socon karo aan alxamdulillaah inta qaadan karo aan wax garan karo alxamdulillaah ilaahay ku xamdiye ilaahay baa mahad u sugnaata haddii aan la kulmo saanoo kala waxaan kula talin lahaa alxamdulillaah hadiidina daawada doonta gargaarka doonta ilaahay hadiidina waa kula talin lahaa waa kula boorin lahaa alxamdulillaah weligiin iyo weligiin u hormaraan dhihi lahaa qofkii la kulmo u hormaraan dhihi lahaa u hormar
dadka ka baxa cisbitaalka ee guryahooda isku baxnaaninaya ayaa ku qasban inay cisbitaalka ku soo laabtaan toddobaadkii mar si baaris dheeri ah loogu sameeyo loona xaqiijiyo in fayraskaasi uu jirkooda ka dhammaaday. halkan waxaan imiday bishii dhammaatay 10keedii April ayaan imiday iyadoo aad qandha ii hayso si wanaagsan baa la qabtay dhaqaatiir iyo kalkaaliyaalba qandhadii wixii oo markaas ku haboonay oo la sii karaya la siiyay qandhadii waa ka roonaaday 24 saac ka bacdi si fiican baan u noqday haddana test baa laga qaaday testigii positive oo keenay qolka waxa la wareejiyay kan wuxuu ahaa midka oo karantiilka wax la wareejiyay midka kaleeto oo dadka jiifka oo positive ka la wareejiyay sidii baa dadaal leeyla garab taagnay oo loo kulligeena loo garab taagnay dhaqaatiirta iyo kalkaalayaashu waqtigii waxa la gaaray haddana laga qaadi lahaa testigii labaad positive aan keenay haddana waa sii joogay dadaalkiisii ku sii socday markii dambe dhaqaatiirtu talada ii soo jeediyeen waxay noqotay inaan anigu kaliya iskarantiilo dibadeedna aan soo noqdo testiga saddexaad maanta ayaad la kulanteen oo testigii saddexaad ah oo aan u soo noqday hadda waa taliga qaaday aad arkaydeen natiijadana Allahu yaclam waa sugaynaa. dowladda Soomaaliya ayaa hirgelisay xarunta xiriirka COVID-19 oo ka kooban taleefanada kooban oo dadku si toos ah u soo wacayaan iyo habka application-ka ee taleefanada lagula soo dego taasi oo dadka isaga shakiya xanuunkaasi ay kula xiriirayaan dhaqaatiirta si ay u helaan talooyin caafimaad iyo gargaarka ay u baahan yihiin. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.